Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada maalin cusub iyo wanasbadi kacam. Maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo gabadha waxay weydiisay sidee aan hooyaday uga dhaadhicin karaa in ay ii raacdo counselings ama waxaan rabaa inaan u tago qof oo dadka la hadasho. Hooyadeydana ma ila fahmayso, hooyo waa hooyo Soomaaliyeed oo maybe cilmiga oo maskaxda ama caafimaadka maskaxda waxba ka aqoonin ama wax badan ka aqoonin amaba aaminsanin inuu jiro wax la dhaho cudurada maskaxda ama caafimaadka maskaxda. Actually su-aashaas runtii waa su-aal aad iyo aad u fiican because especially marka wiilka iyo waalidkiisa dad oo aad iskugu xiran waayo oo aad iskugu dhow, dhibaatooyinka badankood aan caruur ahaan aan qaadano ama aan qaadno ama dabeecadda waxaa u sabab ama waxay ka imaan kartaa waalidkiina. Masalan gabadha hooyadeeda aad iyo aad u fiirsataa, hooyadeed sidii u dhaqantay u dhaqmaysa because waa role modelkeena waaye, waa qofkii aan u fiirinayni inay wax kasta ay suubisa sax tahay. Bad qasab maaha inay hooyo saxsan tahay ama wax kasta ay hooyo suubisa inuu wax oo caqli iyo cilmi ku dhisan inuu yahay, because again hooyadeeda soo fiirsatay waxyaaba badana marka isbedeli karo. Sidaas darteed hooyo markaan fiirsanay waxyaaba qaarkood oo maybe qalad ahaan qaadanay, ama masalan cuqdadyaal ay hooyo qabtayana lagu shubay, ama waxaa dhici karto wax kastaas ka dhici karo. Sometimes xataa hooyad waxaa dhici karta inaa ilmaha dhexdooda hooyada cunuga inuu dareemo hooyadiisa inay wax oo preferential ama favoritism ay suubihaysa. Masalan cunug qaarkiis ilmaha qaarkood mid inay hooyada aad ugu roon tahay camal, mana fahmi karno hooyo waaye, wax kasta ay suubinayso I hope waxaan rajaynaa inuu sabab ka dambeeyo. Laakiin markii dadka walaalaha mis fahmi karaan ama ma fahmi karaan walaalkayga waxay hooyo aad ugu roon tahay because I don't know sabab kasta dhici karto. Laakiin waxay ku noqon kartaa cuqdad inay hooyo hebel iga jeceshahay ama heblaayo ay iga jeceshahay, ama hooyo heblaayo ee aad iyo aad ugu roonaatay ana ima rooneen, ama halaha wax ay heblaayo u qabatay ana ima qabanin. Waxaas dhan cuqdad waaye aan qaadayno. Anaga markii waxaan dhahnaa the story you tell yourself, sheekada adiga isku sheegta waay, sheekada iska dhaadhicisay waay, run ma noqon. Maybe waxaa dhici karta wax inay been tahay oo madaxaaga ku jiro oo adiga iska alifatay, waxaa dhici karta inay run tahay. Anyway, gabadha waxay leedahay hooyaday inay ii raacdan rabaa therapy because waxyaaba oo waxaan rabaa oo ani idinaan ka wada hadalno si oo dhexdayna xiriirkiina u fiicnaysiina ama dhibaatooyinkana dhexmareen inaan xallayno. Hooyo waa diidan tahay, waa la kari leeyahay, maxaa la suubinaa. Hooyo waxaan ku leeyahay hadda message aan rabaa hooyo inaan u diro. Hooyoy gabadhaada hadday ku timaado ay ku dhahdo hooyo dhibaatadaana ay haasato inay caawintidan rabaa, sida ii caawini lahaydna waxa waaye in aad ii raacdid qofkaanita aan la sheekeysanayo oo na kala saarto. Hooyo ceeb kuma jirto. Wax gabadhaada hadday ku imaaday caawin ku dhahda inaa caawintid waa waajib. Wax adi hadda aa ka walwashidna meesha ma yaalo, hooyo aad tahay. Waxaa dhici karta inaadan aaminsanayn caafimaadka maskaxda ama cilmiga maskaxda, laakiin waqtiga wuu isbedelay. Qasabna ma aha wax kasta inaa aaminsanaatid. Waxaa jirta wax la dhaho baroobe. Hooyo waxaa dhici karta adiga hataa inuu culays badan ku saaran yahay ama dhibaatooyin kale aa qabtid oo jaanis ku tahay inaa furfurantid oo dhibka ku haya adigana iska soo bixisid. Marka gabadhaada garab istaag. Gabadhaada waa gabar oo u baahan oo afkeeda furatay oo dhahda caawinaadan u baahanahay, halay caawino, and the only way oo lagu caawini karo waxa waaye inaa adi garab istaagtid. Adi garab istaag, raac gabadhaada, waa saaxiibtaada, hadda gabar weyn waayaba haddii ay terbigeeda raadsanaysa iyada raac, hadla, dhibaatada ay qabto ee kaa tabanayso dhagayso hooyo. Hana u qaadanin inay caay tahay ama xumaan tahay.
gabadhaada kuma xumeyneyso laakiin waxay rabtaa inay xiriirkiina fiicneyso inay cuqdad ku qabto ma rabta inay adduunyo waayo waxaaneeto waxaana ugu fiican qofkii oo gadihiisa wax ku jiro inay iska soo bixiso almasaamix kariim dhahda inaa la iscafiyo way fiican tahay waxa waaye jaanis inaa adi gabadhaada qof saddexaad inay fiirsato wax idinka dhexeeyo ee idin la xaleyso aad iscafisiin oo relationship fiican aad samaysatiin insha allah hooy waa mahadsan tahay waxaan rajeynaa inaa dhageysatay inaa hadalkayga dhageysatid uu wax kaa anfaco baroobaysid waxaa khasaaraysid iska yar iska baroobay haddii aadan naftaada usoo binaynin gabadhaada darteeda u sameey because again culeyska qofka saaran yahay hadda waa gabadhaada adina ma jeclaanaysid cunugaaga culeys saaran inaa fiirsatid waa mahadsan tihiin iyo waa naswada kara asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu